Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa ku soo dhoweynayaa daawadaha iyo qiimaha iyo qadarinta mudano. Waxaana kugu soo dhoweynayaa taxanihii inoo socday ee buuggii lagu magacaabayay xasuusihii Guantanamo, isaga oo shalay buuggu inoo joogay mesajka ay gabadhu soo dirtay ee ahaa sida tan: annagu uma baahnin rag difaaca sharafta iyo dhulka muslimiinta, mana rabno hanti iyo taageero, waxaanse idinka baahanahay inaad noo soo dirtaan kiniinka uurka joojiya si aanan uur ugu qaadin ciidamada dhigiyo cabka ah ee raashiyaanka ah. haddaba qoraaga oo hadalkiisii sii wata ayaa waxa uu yidhi, waxay gilgishay damiirka qof kasta oo ay soo gaadhay, waxayna dhaqaajisay dareenkayaga iyo raganimadayada, iyadoo nagu boorisay sidii aanu wax uga qaban lahayn waxa ka socda dunida muslimka ah. anigu waxaan ka mid ahaa dadkii fariinta akhriyey. raad weyn oo gebi ahaanba bedelay aragtidayda ayay igu reebtay. waxaan ku tashaday inaan naftayda diyaariyo, tababar adagna aan galo, islamarkaana aan ka mid noqdo dagaalyahanada jihaadka shiishaan. sidii ayaan sameeyey. waxaan ku biiray tababarka ururka Daalibaan. waxaan yool ka dhigtay in aan hubka qaato oo u jihaysto ilaa jamhuuriyadda shiishaan. waxaan wacad ku maray in aan yoolka ka dhabeeyo. taasi dhab bay noqotay markii aan magaalada Khawjaqaar tegay. Khawjaqaar waa magaalo yar oo ku agtaalla webiga Jiixoon, waana goobta kala xadaysa xoogaga Daalibaan, dagaalyahanada Mascuud Shah iyo isbahaysigii oo Ruush iyo Faranjiba leh. sida kale waa magaalo taagag iyo togo qallalan leh. dhismayaasheedu waa guryo kala durugsan kana samaysan dhoobo iyo caws. guryaha qaarkood way duusan yihiin, halka kuwo kalena dagaalada ba'an awgood looga guuray. sababtoo ah xoogaga Daalibaan ayaa saldhig ciidan iyo halkay dagaalka ka soo aloosaan ka dhigtay. deegaankani waa halkii u horreysay ee aan dagaalka ka bilaabay, halkaas oo aan godadka dhufayska hoy ka dhigtay. anigu ma ahayn qofka keliya ee carab ah, oo waxaa joogay jinsiyado kala duwan oo carab iyo cajamba leh. halkani waa goob la isku fara saaray oo ay dagaallo ba'an ka dhaceen. waxaan shaki ku jirin dhacdadii 11 Sebteembar 2001 in ay ahayd bar isbeddel ku keentay caalamka, taasi oo leexisay majarihii siyaasadeed ee dhammaan dowladaha oo uu Maraykanku ugu horeeyo. markiiba waxaa la tuhmay in ururka Al-Qaacida ee uu hogaamiyo Usaama bin Laden uu dhacdada ka dambeeyay, isla markaana Bush ugu hanjabay inay ka aarsan doonaan. waxa uu Maraykanku ka codsaday dhammaan dowladaha, gaar ahaan dowladaha Carabta iyo dowladaha Islaamkaba, inay iska kaashadaan sidii ay uga aargoosan lahaayeen. waxa uu ku magacaabay ururada asal raaca argagixisada ah, kuwaasi oo dhaawacay sharaftii Maraykanka. Bush waxa uu warbaahinta kala duwan ka horyiri ciddii aan nala jirin way naga soo horjeedaa. waxa uuna sheegay in wax laga bedelo habdhismeedka dowladaha muslimka, kuwaasi oo loo aqoonsan yahay in ay ururada asal raaca ah maalgeliyaan. Bush shaqadii u horreysay ee uu qabto waxay ahayd inuu ciidanka Maraykanka ku soo jeediyo xoogaga maamulka Islaamiga ahaa ee Afghanistan, kaas oo hoos imanayay hoggaanka dhaqdhaqaaqa Daalibaan oo uu Sayid Maxamed Cumar hogaaminayay iyo bahwadaagiisii Usaama bin Laden oo ahaa hogaamiyihii Al-Qaacida oo ka dambeysay burburkii Maraykanka soo gaadhay sanadkii 2001. Maraykanku wuxuu kaalmooyin ka helay dowladaha Carabta iyo kuwa Islaamkaba, gaar ahaan dowladaha la jaarka ah Afghanistan sida Pakistan oo saldhigyadeedii iyo dhulalkeediiba u furtay sidii Afghanistan loogu duuli lahaa. diyaaradaha Maraykanku waxay bilaabeen inay duulaanno isdaba joog ah ay ku beegsadaan magaalooyinka Afghanistan, ha ahaato caasimadda Kaabul, Qandahar iyo Jalaalabad, iyagoo hub culus lagu garaacayay. sidoo kale maraakiibta xeeliyada ku sugan ayay ka soo kacayeen diyaarado ku hubaysan hubka noocyadiisa u dambeeyay si magaalooyinka loogu burburiyo. kadib markii ay qabsadeen badi magaalooyinkii muhiimka ahaa ee koonfurta galbeedka iyo bariga dalka, ugu dambeyn waxay u jahaysteen waqooyiga Afghanistan. markan waxaan ka mid ahaa xoogaga Daalibaan ee aagga waqooyi. waxaa yimid diyaaradihii wax basaasayay si ay u ogaadaan goobaha ay dagaalyahanada Daalibaan isku urursanayaan. 40 ka mid ah dagaalyahanadu waxay joogeen meel taag ah xaggiisa dambe, isku diyaarinayeen salaad,
iyagoo hagaajinayay safkii salaada waxaaba dul timid mid ka mid ah diyaaradihii Maraykanka waxayna sida roobka kaga dhigtay madaafiic dhammaantoodna way dhinteen. kadib waxaa goobtii yimid hogaamiyihii kooxda oo ay la socdaan koox kale oo dagaalyahano ah si meydadka meesha looga qaado. mar kale ayay diyaaradii soo laabatay sidii hore oo kale ayay gantaalo ku garaacday halkii ayuu hogaamiyihii iyo kooxdiiba ku qurbaxeen marka laga reebo shan dagaalyahan oo ka badbaaday. u bixidii magaalada Qundus ciidanka Maraykanku gaadhay waqooyiga Afghanistan qorshahoodu wuxuu ahaa in aanay laynin dadka Carabta ah ee ka barbar dagaalamaya Taliban oo waxay rabeen inay nolol ku qabtaan. si ay taasi suurtagal u noqoto waxay isku dayeen inay doc kasta nagaga garaacaan gantaalo culus si ay meel noogu oodaan oo ay u fududaato inay qabtaan, balse qorshahaasi guuldarro ayuu ku dhammaaday waayo hogaamiyihii kooxda Qariib Sancaani oo hoggaanka kala wareegay Cabdisalaan al-Hadraami markii uu qorshaha ogaaday wuxuu bilaabay in uu dagaalyahanadiisa goobtan lagu gaadhsan rabo ka saaro. hogaamiye Qariib Sancaani wuxuu naga saaray goobtii. markii aan ka baxnay waxaa goobtii dul heehaabanayay diyaaradihii dagaalka. sidoo kale waxaa goobtii midig iyo bidixba kaga yimid ciidankii isbahaysiga oo uu hogaaminayo mid ka mid ahaa ciidanka Mascuud Shaah. goobtii ayayna soo galeen iyagoo u malaynaya in aanu ku jirno. waxaanu sii wadnay ka bixidii deegaanka Khawjaqaar annagoo ku jihaysan saldhiggii weynaa ee Taliban oo ahaa magaalada Qundus oo ilaa markaa cadowga aanu qabsan oo la isku hor fadhiyo. waxaanu qaadnay jid u dhexeeyay buuro iyo taagag. waxaanu nahay jinsiyado kala duwan sida Daadkistaaniyiin, Bengali, Bakistaaniyiin iyo Carab ka soo jeeda Yemen, Sacuudi, Liibiya, Morocco iyo Algeria. markii aanu goobta ka soo baxaynay barkayo waxaanu iska tuuraynay agabka culus si uu socodkayagu u fududaado. deegaanada aanu maraynay waxaan ku tilmaami karaa saxan beed ah sida aanu mar taag u korayno mar kalena uga dhaadhacayno annagoo koox u soconnaa, koox kastaana taliyo leedahay, ilaa aanu qorax dhici gaadhnay meel marin cidhiidhi ah oo ku hoobata bannaan. markii aanu gaadhnay dhammaadkii marinka oo ay tahay habeen waxa aanu maqalnay cod iyo sanqadh jabaq ciidan in ay tahay ayaanu isku afgaranay. waxaan ku dhahnay yaa weeye markii naloo joogi waayey waxaanu u malaynay in cadowgii jidgooyo nagu sameeyey. xagga hore ayaan kooxda ka socday, cabbaar ayaan taagnay markii aanu codka maqalnay waaba iftiinka rasaasta oo ay hormaraya. judhii baanu ka falcelinay muddo haddii aanu dabka iska saarnay. waxaan indhahayga ku arkayay mid ka mid ahaa walaalaha oo dooxa ku sii dhacay kadib markii ay haleeshay rasaasta qoriga loo yaqaano RPG. dhowr qof ayay naga dileen. markii iska hor imaadkii uu muddo socday ayaanu dhankooda qaylo ka maqalnay iyagoo leh joojiya waa jaalayaashiin. maanta xalqadeena afraad intaas ayaynu ku joojinaynaa. intaan xalqatan oo kale aanan ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idinku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.